guul waliba oo ummadu xaqiijiso waxaa saldhig u ah sida dadkaasi ay fursad u siiyaan waxbarashada iyo horumarinteeda. Soomaaliya oo sameynaysa soo kabasho iyo horumar xooli ku socda oo dhan kasta ah, tacliinta ayaa loo arkaa dhabaha qura ee lagu sii joogteyn karo. Guulaha la gaaray dhaqsina looga daba tegi karo ummadihiina dhaafay muddadii aynu ku jirnay dagaalada sokeeye. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo garowsan ahmiyadda tayeenta waxbarashada u leedahay xaqiijinta ahdaafta heer qaran ayaa mudnaan siinaysa kordhinta fursadaha waxbarasho ee muwaadiniintu heli karaan iyo tayeenta waxbarashada dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay qorshaha dowladdiisa ee horumarinta waxbarashada ayaa xusay in muddo xileedkiisu ay dowladdu shaqaalaysiinayso 10,000 oo barayaal Soomaaliyeed ah ayna jiri doonaan tallaabooyin kale oo dowladdu u qaadayso la dagaalanka jahliga. Furthermore, we recognize that our most valuable asset is our people. Waxaan garowsanahay in hantida ugu qiimaha badan ee dalkeenu leeyahay ay tahay dadkiisa. Sidaasi daraaddeed waxay naga go'an inaynu kor u qaadno helidda iyo tayeenta waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka, gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada. Maadaama aan ahay macallin hore, waxaan garanayaa sida waxbarashadu u dabooli karto faqriga. Waxaan ku soo dhex barbaaray bulsho yar oo reer miyi ah. Markii uu aabahay dhintay kadib, hooyaday ayaa dadaal ku bixisay sidii aan wax u baran lahaa. Hooyaday ma awoodin inay wax qorto ama akhriso, ha yeeshee waxay si joogto ah u hubin jirtay shaqo guriga, homework, iyada oo ku garan jirtay qalinka guduudka ah. Aad ayay ugu mahadsan tahay hooyaday dadaalkeeda. Waxaan rabaa in dhammaan carruurta Soomaaliyeed helaan fursad waxbarasho. Dowladdaydu waxay horey u ballan qaaday isla markaana bilowday olole xooggan oo lagu shaqaalaysiinayo macallimiin cusub. Muddo xileedkayga waxaan qaadan doonaa 10,000 oo macallimiin ah oo lagu biirinayo dowladda. 20% ka mid ah waxay noqon doonaan gabdho. Horey waxaa loo shaqaalaysiiyey 3,000 oo macallin oo xilligan tababar u socdo. Macallimiinta cusub waxay ka howlgeli doonaan dhammaan dalka, waxaana loo qoondayn doonaa hannaanka waxbarashada maamul goboleedyada, ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey fadhi gaar ah oo ay arrimaha Soomaaliya ka yeesheen Golaha Ammaanka Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa.